السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لولا udhaxaya xaqa iyo baadilka. Haddaba xaqa iyo baadilku way ku loolamayaan ama way ku loolami jireen ilaa weligoodba ilaa maalintii adduunka la soo abuuray ilaa maanta iyo ilaa qiyaamaha. Dadkuna way kala raacsaneen Ilaahay iyo shaydaanka. Ilaahay wuxuu yiri anaga ilaalinayna diintayada oo xifteeyna. Shaydaanna wuxuu yiri dadkan dhinac kasta waan kaga imanayaa oo waan duusan doonaa. Haddaba haddaynu isla eegno labadan kelmadood waa Carabi, waa xaq iyo baadil, waxaanay ka mid yihiin hadallada aan sidoodii u qabsanay ee aynaan bedelin. waxa kale jira hadallo kale ama kelmado kale aan bedelay wax kamida iyo qaar aynaan bedelin. kuwa aynu bedelay wax kamida waxa kamida sida khatar iyo qahwe. khatar waxa looga jeedaa khatar, qahwana waa shaaha qahwe, inaguna waxaan dhahnaa qahwe isna waa qahwe. haddaba Soomaalidu ma Carabba iyo meesha ka soo jeedtay wahalkii taana hore uga soo hadalay oo u soo gorfaynay. tusaale Nabi Maxamed iyo asxaabtiisu waxay wadeen xaq, waxaana hortaagnaa gaaladii xumayd ee Quraysheedii qaar la mid ah oo iyaguna baadil waday. sidoo kale raggii wanaagsan ee diinta wax soo qabtay waa la xidhayay, waana la dilayay, waana la ceebeynayay. kaasuna waxa uu ahaa baadil. haddaba dadka xaqa wada way dhibtoonayaan, horena way u dhibtoodeen. tusaale Nabi Maxamed in badan bay Quraysh dishay oo eriyatay oo fadeexadisay. culimadii hore in badan bay jeel ku jireen oo xidhnaayeen. muadinkii Bilaal sidii loo dili jiray wad garanaysaa, siiradana inaad ku soo martaan u malaynayaa. haddaba walaalkayow iyo walaashay u diyaar garow in dhibaato ku soo gaadho sababtoo ah waxaad wadaa xaqe. haddaba haddaad xaq wado waxa kugu socda imtixaan, waayo Ilaahay baa wuxuu hore yiri adduunyadan dadka waxa loo keenay in lagu imtixaamo lagu kala saaro ee looma keenin inay ku raaxaystaan. haddaba walaalkayow ama walaashay hadday dhib ku soo gaadho xagga diinta u samir, sababtoo ah Nabi Maxamed waxa lagu lahaa samir waad helaysaa guushe. haddaba nolosha aadamaha way ku yar tahay iyo taariikhdiisa isagoo mid ahaan shaqaynayay mid ahaan fadhiyay ee waxa la soo sheegaa in isdhinac yaacayeen oo muran ku jireen ilaa al'aanankana ay muran ku jiraan. haddaba muslimku waxa uu qaybsamaa labo. bismillaah talo waxay labadan mid been maqli jiray. haddaba wuxuu u qaybsamayaa labo: muslim la dhaho mara ku dhig iyo muslim la dhaho qunyar socod. talo waa maxay qunyar socod? haddaba muslimka qunyar socodka waxa weeye markuu gaal amar soo rogo kagu raali noqonaya ee iska aamusaya. maalintu gaal yiraahdo salaada hal la daayo ka joojinaya ayaa la dhahaa qunyar socod. markuu doonana sakada aan bixinayn ee amrada iyo waajibaadka diintu bixinayso ka gaabinaya. yacni haddaynu sii faahfaahino waa ka diintiisa aan kaali weyn ka qaadanayn say u sarreyn lahaayeen. haddaba magacan mara ku dhig saasay u isticmaalaan gaaladu, inaguna sidaasaynu u isticmaalaynaa sababtoo ah inagu si kalan u macnaysanaynaa. haddaba muslimka mara ku dhigaya waxa weeye muslimka aan ka tagin sunnayaasha iyo waxa Ilaahay amrayo, gaaladana aan dhagu jalaqsiinayn. haddaba haddaad maqasho qof muslima gaal dilay ogowkaasi waa mara ku dhig, waayo diintiisa wuxuu qabanayay oo diintiisa ku adadkaa. dabadna waxa looga baqay inuu diinta sarreysiyo, waayo gaalkaama ogola inay diintaadu sarreyso. haddaba ballanteenu waxa weeye ha noqon muslim qunyar socda ee noqon muslim mara ku dhiga oo diintiisa wuxuu qabta af iyo aadinba. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.